wiilkan yar ee Frankia Shoblan waxa uu dhameystiray sanadkii saddexaad kadib markii uu ku dhashay hal sanbab hal kili iyo wadne ku yaala dhinaca midig ee jirkiisa uuna nool yahay waa mucjiso caafimaad iyadoo ay jirto in lagu tilmaamay inuu yahay qof nuskiisu yahay aadane xaaladiisa naadirka ah marka la eego kadib markii ay dhaqaatiirtu daah rogeen inta badan abdominal cavity-ga ay faaruq yihiin oo aanay shaqaynin waalidiinta dhashay Grant iyo Kerry Shoblan oo ka soo jeeda koonfur bari London iskuna fil ah ama isku daa ayaa waxa ay diideen in ilmaha uurka hooyada laga soo rido kadib markii baaritaanadii lagu sameeyay ay soo saareen inay wax qaldan yihiin markii uu dhashay waxa uu isbitaalka ku sugnaa oo lagu hayay 800 oo maalmood jariirada Daily Mail waxa ay sheegtay in Frankia laba qalliin oo waaweyn lagu sameeyay midkood sanbab artificial ah ayaa loogu galiyay laakiin dhibaatada haysata ayaa ah in aanu cunnada iyo cabitaanka si dabiici ah u qaadan karin maadaama neefsashadiisa ay u baahan tahay in lagu taageero oxygen oo inta badan iyadu xiran